Beri hore waxaa kayn ku noolaa xayawaano badan oo duurjoog ah. Xayawaanada waxaa ka mid ahaa libaax, oo ahaa boqorka kaynta. Libaaxani waxa uu ahaa mid laga baqo, oo waxa ka baqi jiray dhammaan xayawaanada kaynta ku nool. Maalin walba waxa uu dili jiray xayawaanada isaga ka tamarta yar. Xitaa haddii uu dheragsan yahay oo aanu cunayn, haddana uu dili jiray. Waxa uu ahaa libaax xaasid ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayay xayawaanadii shir qabsadeen, waxayna ka tashadeen arrinta ku saabsan libaaxa. Markii uu shirkii dhammaaday ayaa diinkii oo isagu ugu daaweynaa xayawaanada loo diray libaaxii si uu ugu sheego waxa ay ku tashadeen. Diinkii ayaa u tegay libaaxii wuxuuna ku yidhi, libaaxow, boqorkii kayntow, annaga oo ah duurjoogtii kaynta, waxaanu u dulqaadan weynay in aad maalin walba xayawaano badan oo naga mid ah aad layso. Waanu tashanay, waxaanu isla qaadanay in maalin walba mid annaga naga mid ahi uu ku yimaado si aad u cunto, isla markaana aad ka raysato inaad xayawaan eryato si aad u ugaarsato. Waxaanu se kaa dalbanaynaa boqorow, in aad iska dayso xayawaanada aad dilayso, oo keliya aad ku ekaato xayawaanka kuu yimaada si aad u cunto. Libaaxii ayaa ugu jawaabay, waan ogolahay, waanan ixtiraamayaa waxaad ku tashateen, laakiin haddii uu iga soo habsaamo xayawaanka aad ugu tala gasheen in aan cuno, waxaan idiin ballan qaadayaa in aan dhammaantiinba idin dilo. Diinkii ayaa ka soo noqday libaaxii, waxaanuu uga sheekeeyey xayawaanadii kale waxay isla afkarteen libaaxa. Xayawaanadii shir labaad ayay qabsadeen, waxayna ka wada hadleen xayawaanka berri loo diri doono libaaxa si uu u cuno. Dood dheer kadib, waxaa la isla afkartay in berri loo diro libaaxa Bakayle si uu u cuno. Aroortii markii ay gaadhay, Bakaylihii oo naxsan ayaa lagu yidhi orod oo u tag libaaxa si uu kuu cuno. Bakaylihii wuu iska sii luuday, waxaanuu ka fikirayay sidii uu uga badbaadi lahaa libaaxa. Mar dambe oo ay barqa tahay ayuu soo gaadhay godkii libaaxa. Libaaxu wuu gaajoonayaa, waanuu xanaaqsan yahay. Waxa uu ku yidhi Bakaylihii, waxa ballan inoo ahayd inaanad iga soo habsaamin, haddii kalena waxaan laynayaa dhammaan xayawaanada kaynta. Bakaylihii ayaa ugu jawaabay, mudana sababta aan kaaga soo habsaamay aan kuu sheego. Dhexda markaan soo socday, waxay qabsaday libaax kale oo adiga kuu eeg. Wuu i cuni gaadhay, laakiin waan ka fakaday. Waxa uu sheeganayay inuu yahay boqorka kaynta, cid kale oo ka awood badanna aanay jirin. Libaaxii ayaa xanaaqay, wuxuuna ku yidhi Bakaylihii, ii gee libaaxa igu haysta kayntayda, aniga unbaa ka talin kara kayntan. Bakaylihii ayaa soo kaxeeyey libaaxii, waxaanuu dul keenay ceel ku yaalla kaynta bartamaheega, waxaanuu u sheegay inuu libaaxu ku dhex jiro ceelkan. Libaaxii ayaa dul istaagay ceelkii, waxaanuu iska dhex arkay biyihii, kadibna waxa uu mooday inuu arkayo libaax kale. Wax badanba muu sugine wuu ku booday ceelkii, kadibna uu dhintay libaaxii. Maalintaa laga bilaabana, xayawaanadii kale nabadgelyo ayay ugu noolaayeen kaynta. Fadliguna waxa uu u noqonayaa Bakaylaha maskaxda badan.